السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. anigu waa macalin muuse. Channelku waa channelka macalin muuse ee barta youtube-ka aynu ku leenahay. Haddii muuqaalkeena uu kusoo gaaray oo ay tahay markii kugu horreysay oo uu kusoo gaarayo, ha hilmaamin subscribe, like, share, maxaa yeelay aad buu muhiim kugu yahay. Sidoo kale waxaasoo dhan kasii muhiimsan marka aad intaas samayso kadib inaad gambaleelka furato si muuqaalka ama notificationka uu kugu soo dhaco markaan muuqaal cusub aan soo gelino. waxaan idin rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan, aniguba sida aan u caafimaad qabo biidni illaah. maanta waa maalin kale. waxaynu maanta ka hadlaynaa oo aynu diiradda saaraynaa, haddii aan toos u guda galo mawduuca, in qofka muslimka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaashihiisu ay ku badan tahay oo ay ku weyn tahay, in cilladaha isaga oo soo jeedo lagu tusi karo cillad bixintiisa can tariiqi ilmanaam, riya ahaan. waxaa dhici karta qofka isaga oo xanuunsan, isaga oo sixran, isaga oo dhibaato lala maleegi rabo ku soo socoto ama ku dhacday, inuu ilaahay dawadiisa uu ku tuso manaam ahaan ama riya ahaan, sida aynu maanta cashirkeenna aynu ku qaadan doono. cashirkeenna cashir caadi ah ma ahan, waa riyo uu ku riyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalama, ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu ku caafiyey. xadiidkan waxaa werinaysa caaisha radia allahu canha. waxay leedahay, nebiga ayaa la sixray sala allahu calayhi wasalama. waxaa sixray wiil yahuudi ah oo magaciisa la yidhaahdo lubeyd ibnulacsam, wuxuuna ahaa reer bani zureyq ayuu ahaa. nebiga sala allahu calayhi wasalama sixirka la sixray awgiisa ayaa waxaa loo maligelin jiray oo uu u malayn jiray inuu u tegaayo xaasaskiisa qaarkood, mana uusan u tegi jirin sala allahu calayhi wasalam. maalin maalmaha ka mid ah, isaga oo hurda nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa riyo waxaa uga yimid. riyadani waana riyo, wuuna hurdaa wuuna soo jeedaa, maxaa yeelay ambiyada indhahoodu ma hurdaan. nebiga isagoo hurdoo soo jeedo ayaa waxaa u yimid laba malag. midna waxa uu fadhiistay madaxiisa agtiisa, midka kalena wuxuu fadhiistay lugtiisa agteeda. markaasay nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, isagoo u sheekeynaya caaishoy, ma og tahay ayuu yidhi inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu jawaab iga siiyey su-aashii aan weydiistay. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iiga jawaabay baryadii iyo ducadeedii, inuu jawaabay ma og tahay, ma kuu sheegay? maya. haddaba dhegayso. xalay waxaa ii yimid ayuu yidhi laba malag. labada malagna waxay fadhiisteen midna madaxayga midna lugteeda. markaasuu labadoodu mid ka mid ahaa wuxuu weydiinayaa midka kale, ama su-aasha waxaa bilaabay oo weydiinayo midka madaxa fadhiyey, oo midka lugaha agtiisa fadhiyeyna wuu ka jawaabaya, ama midka lugaha su-aasha weydiinayo kan madaxa agtiisa fadhiyaa ka jawaabayo. si kastay ahaataba waxay isweydiiyeen, war ninkani maxaa ku dhacay? waa lagu kor hadlayaa. ninkani maxaa ku dhacay? markaasuu kii kalena wuxuu yidhi, matbuubun, wuu sixran yahay, waa la sixray. markaasuu kii kale wuxuu yidhi, oo maxaa lagu sixray? markaasuu wuxuu yidhi, ama yaa sixray? waxaa sixray wiil yahuudi ah oo la yidhahda magaciisa lubeyd ibnulacsam. muxuu ku sixray? wuxuu ku sixray shanlo iyo tin. wuxuu ku sixray oo sixirkiisana uu geliyey ama uu dhigay geed timireed oo lab ah, aan dhadig ahayn, lab ah. markaasuu wuxuu yidhi, aaway geedka timireedka aaway? wuxuu yidhi, ceel la yidhahda magaciisa the arwan, ama ceel la yidhahda magaciisa bi'ru darwan, ama bi'ru the arwan. ceelkaas ayuu dhex dhigay sixirkii nebiga oo ka sixray. markii nebiga intaasi loo sheegay, waxaa u yimid dhalinyaro saxaabada ayaa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalama. marka wuu diray, wixii waa lasoo faagay, waa lasoo bixiyey. aayado qur'aan ahna nebiga waa lagu soo dejiyey, qul acuudu birabbi lfalaq iyo qul acuudu birabbi nnaas. tafaasiirta sida ibnu kathiir oo kale waxay sheegayaan in nebiga sala allahu calayhi wasalama aayadahan markii ay kusoo degeen, mid walba oo uu aqriyo inay go'aysay gun ka mid ah guntiimaha sixirka.
waxaa la sheegaa inuu ahaa uu ka koobnaa 11 guntiino ayuu ahaa sixirka. aayadaha marka la isku dardaro qul acuudu birabbil falaq iyo qul acuudu birabbin naas waxay ahaayeen 11 aayadood. aayad walba marka uu aqriyo hal guntiina furmaysay. nebiga markii uu caafimaaday sala allahu calayhi wasalam ayuu cali ibnu abi taalib iyo rag kale u diray saxaabada ka mid ah. waa lasoo mataqaanaa faagay waa lasoo helay. markaasuu wuxuu amray in la duugo ayuu amray nebiga sala allahu calayhi wasalam. markii uu ka sheekeynayo weliba wuxuu yidhi yaa caaisha waxaad moodaa ceelkaasi biyihiisa sidii cilaan camal inay u madow yihiin ama ay u guduudan yihiin. wallaahi waxaad moodaa wuu yidhi timirteeda ama jirdeedana kaannahaa ru'uusa shayaatiin shaytaan madaxyaashiisa madax shaydaan oo kalead moodaa ayuu yidhi. markaasi caaisha waxay ku tiri maan gubno oo aan dab ku shidno ceelka iyo wax dhan. markaasuu wuxuu yidhi wallahi aniga ilaahay waa uu i caafiyey mana doonayay dadka inaan hadhow shar dhexdooda aan ka dhaliyo oo ay dagaal iyo fidno ay dhalato. ceelkeena maxaa loo duugay iyo ceelkeena maxaa saan loo yeelayaa. saas daraaddeed marka nebiga wuxuu faray in la duugo ayuu faray ceelkii waana la duugay. maxaan ka qaadanaynaa marka riyadan? horta marka ugu horeyso riyada ambiyada inay xaq tahay ama waxyi ay tahay laa shaka wax shakiya oo ku jira haba yaraatee male. laakiin muhiimaddeenu waxay tahay haddii aad tahay qof tala saarashada ilaahay subxaanahu watacaala ay ku weyn tahay dhibaato walba oo ku haysato xalkeeda inuu ilaahay kugu tusi karo can dariiqi ilmanaam riya ahaan. maxaa yeelay adiga nebi ma tihid ma lagu waxyoonaayo malag ma lagu soo diraayo. waxaa laga yaabaa haddii ilaahay uu rabo inuu wax kuu sheego inuu riyo kugu sheego. saas daraaddeeda marka intaasoo qofood oo waxaad arkaysaa oo dhiban ama sixran ama balaayo ku soo socoto oo ilaahay subxaana watacaala uu kaga digaayo can dariiqi ilmanaam riya ahaan. way noo imaan doonaan xalqadaha soo socdo haddii ilaah yidhaahdo dad badan oo riyo sababteeda ku hanuunay, dad badan oo riyo sababteeda ku waxyeeloobay, dad badan oo riyo sababteeda ku caafimaaday. intaba way noo imaan doonaan insha allahu tacaala. laakiin waxaynu uga gogol leenahay oo aynu rabnaa in aynu ogaanaa waxay tahay in riyadu wax sahlan maahan. markii riyadu laakiin ay tahay maxay riyo xaq ah. laakiin riyooyinkan oo dadku ay isaga riyoonayaan burgada dadka ku disayo wax xunaan ku riyooday xale cabsiyaan ku riyooday waxaas waa shaytaan waa qarow. laakiin riyadu markii ay tahay riyo fiican calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah artu marka ugu horeyso walwal dhan ma dareemaysid ma jiro walwal. riyadu markii ay tahay ru'ya min allahi kuma walwalinayso. riyooyinka wanaagsan waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah adigoo dhoola caddeynayo adigoo faraxsan ayaa soo kacaysaa. shar iyo macsi iyo xumaanna kuma farto. laakiin haddii aad isaga riyooto adiga oo balaayo kugu habsatay, adiga oo shil diyaarad galay, adiga oo shil baabuur galay, adiga oo dhididayo naxsan, adiga oo socon karin oo lugeyn karin oo bacad ku dhex jiro, adiga oo dhibaato ku dhex jiro, waxaas waa takhwiif min ashaytaan. ilaahayna wuxuu ku tilmaamay inamaa dalikum ashaytaan yukhawifu awliyaahu falaa takhaafuuhum. idan marka shaydaanka inaan laga cabsanin ayaan xaggeena annaga nagu wajahan oo nalaga doonaya. ma ahan inaynu wax walba oo xun aan ku riyoono inaynu la tiigsanaa ama aynu raadinaa shiikh noo fasiro. arrintaas laga digtoonaaday insha allahu tacaala. muhiimadda aynu ka qaadanayno ru'yadan waxay tahay in riyadu caafimaadkaaga laguu soo dhex marin karo riyo, in mataqaanaaye bishaaro laguu soo dhex marin karo riyo. cabdullaahi ibnu cabbaas oo ahaa saxaabi jaliil oo mufasir oo aad u fasiro qur-aanka kariimka ilaahay baray tafsiirkiisa wuxuu leeyahay lahum lbushra fi lxayaati dunya. markii uu macneynayey wuxuu ku macneeyey inay tahay bishaaradaasi bishaarada hurdada muslimiinta loogu bishaareynayo. wax walboo farxadda oo bishaaraha oo riyada aad ku aragto waa fa min allah ilaahay ayaa kuu bishaareynayo. wax allaale wixii dhib ah oo aad riyada ku aragto dhidid iyo naxtin aane fa min ashaytaan shaydaan ayay ka ahaatay. waxyaabaha naftu ay jeceshahay haddii aad kugu soo noqnoqdaanne fa min nafsika naftaada adiga waaye. inaad ka wada faa'iidaysteen waa rajaynayaa. muuqaalkan muuqaalka xigo intaynu ku kulmayno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.